waraxmatullaahi wabarakaatu daawadayaal ku soo dhowaada barnaamijkeennii isboortiska riyo socdaal maanta waxaa marti noogu ah axmed nuur qaybtii saddexaad daawadayaal ku soo dhowaada axmed nuur ku soo dhowaada mahadsantahay waan ku dhowahay mahadsantahay maasha allah maadaama yani website-kan website aan ka helay dad badan ay iga wareysteen ay dhaheen ma aragtay war axmed nuur wallahi sida waraysigaas u ahaa si cajiib waa kaas taasna waan kugu hambalyeynaya maasha allah axmed nuur soo dhowow barnaamijkeennii maanta saddexaad baan ka hadlaynaa barnaamijyadeennu marka way iska soconayaan maasha allah maalinba program baan ku soo qaadanaynaa maanta ileen mar walba axmed nuur haddaan dhahno axmed nuur waa dhammaynaynaa ma dhammayn karno waan gartay marka waxaynii baan kala yaryaraysanaynaa maasha allah waaya axmed nuur waxaan kaa weydiinayaa arbitrayaashii waddanka soo maray qaarna waan ku soo gaarnay laakiin xogtoodii iyo arrimahoodii iyo ninka ugu adkaa iyo ninka ugu dambaystisanaa iyo ninka go'aankiisa aan ka noqonin axmed nuur ku soo dhowow wallahi horta waa mahadsan tahay kowdhe horta annaga waageennii arbitrayaal fara badan aan qabnay oo fiican aan qabnay marka arbitrayaalkeenna horta ma kala dhici jirin laakiin standard ahaan ma aragtay kuwa laga baqi jiray iyo kuwa aan laga baqi jirinba waa jira kuwa laga baqi jiray waxay ahaan jirtay ayagoo yani kuwa fiican in cayaarta qarribaadeeda mid ay u abuurantay ay noqoto kuwana waxay ahaan jireen kuwa masaalaxadda cayaartooyda ama maslaxadda cayaartooyda kuwa wada ah oo ma aragtay mar walbeeto dhowra marka tajirtaa waxay tahay hadda aniga indication hebel iyo hebel ma dhahay laakiin waxay ahayd arbitrayaal fiican oo Soomaaliyeed aan qabnay ayagoo kuwaas ay ka yimaadeen waqooyiga ayagay ka yimaadeen dibadaha kaleeto ayagoo maxaan ilahaa wadanka dadkii meel walba Soomaaliyeed waaya axmed nuur arbitray ugu fiicnaa bal carabka ku dhufo wallahi waxaan ku dhahayaa arbitraha horta sideedaba aan ku sheegaa dadka macalinkan cayaartooyda arbitraha u noqonayo kulli horta markaad eegto isku mid waay laakiin waxaa jira qaar laga baqo jira aan kaaga hadda hadalkayga oo go'aankooda uu adag yahay ka soo noqonin faraxsindika ninka la dhihi jiro kaleeto allah u naxariistay wuu adkaa dadkiisa inkastoo ay jireen arbitrayaal kaleeto cayaarahan waxay ku wanaagsanaayeen masaalaxadeeda in wax laga qabto aan kaaga hadla oo cayaartii burbur iyo colaad iyo waxyaabo ayna u imaanaan kaaga hadla marka taasna dhibaatada waxay keeni jirtay faarax uu suubinayo oo ma aragtay awood ah oo cayaartooyda inay ka baqaan ay timaado haddayse kaa baqi waxay rabaan bay samaynayaan may khaladka waa loo fiiriyaa khaladka waxaa jira calan walaa jooga xataa oo khaladkoodii arki kara waxaa jooga nin komisaariyaa jiri jiray waagii oo dibadda jooga oo waxa khaladaadka ay kulli mid ka koray maa jiray mid kor waxaa jira kor jooga asaga dadkii ku dhex jira oo komisaariyaata oo markii xaaladda xumaato soo degaayo ma soo degaayo qiimaynta cayaartooygii maanta la bixiyey for example kaaga hadalkayga khaladka lagu bixiyey dibbiday uga shiraanay noqonaysaa inuu laga qaldan yahay ama isaga inuu qaldan yahay waaya arbitrahii ugu sharciga adkaa oo markii walba maanta arbitrahana qabanayni ma jecli wuu nagu adkeeyaa sometimes waxa dhacda haddaan jeeyinahay arbitrahan ma jeclin horseed hadday dhahaan anagu arbitrahan ma jeclin hataa premier league way ka jirtaa marka bal tiimkaagii ma jira arbitra marka ninka ka qabto aad dhihi jirtay ninkaan maanta ma rabno ninka la dhahayo ninka ugu fiican annaga ninka aan dhahno ma rabno arbitrahaas waa ninka ugu fiican sababta loo dhahayna waxa waaye go'aanadiisa ma aragta hadalkayga waxay tahay go'aano adag alloora go'aan adag markuu leeyahay qofka adiga waalidka marka aad ka baqaysid ka waran waa siday tahay marka waxaan ku sheegaa ninkan waalidkii oo kale waa ninkan marka uu go'aankiisa uu adag yahay wax walbana sideedaba nolosha waxayba tahayba go'aanka adag ma ujeedaa wax fiican waay axmed nuur waxaa jirta hadda for example tusaalan ku siinaya Chelsea iyo Man United baa dheelaya arbiter aan ogahay markuu qabto waxaan leeyahay arbiter aan dhowr jeer guduuduna siiyey wuu naga heeliyaa wuuna dhibaateeyaa hataa Premier League waxaa jira arbitrayaal marka ay qabtaan ay history ka soo sheekeeyeen waa ugu talagalna waxaan maalintaas anigu qalad baan ka galay Man United sidaasoo kale ma dhacdaa fere ma dhacdo waxaan u dhicin aan ku sheegaa go'aanka khalad iyo saxba ninka refereega ahaa leh kow alloora maraa waxaa jiri jiray nin la dhaho komisaariyaata oo kor ka eegaya wixii oo khaladaadkii iyo wixii iyo kulli aniga hadda ka hor waxa dhacday ninaan wax ku dhuftay dhaawac ku dhuftay lima arag way gartaa uma leedahay markii aan la arkin markii aan la arag way faal ma jirna kaaga dad gudiya fadhin jiray isbartiibada waaga kamera iyo adduunkaas iyo waxaas ma lahayn ma ogtahay markaas waxa dhacday
waa la arkay waxaa arkay dad guddigii ka mid ah arkay barnaamijkeena joogaan turbuunkay saaran yihiin ganaaxa la ii keenay waxaa la yidhi ninkan arbitra ma saarin dembi lagu arkayna ma jirin maxaa dhacayna saar waa gartaa umalaadakayga alloora xoogaa fowdaa laga suubiyey kooxdayadi ka suubisay fowdadii ay ka suubisay waxaa dhacday go'aankii wuxuu noqday go'aanka nimankaas oo bannaanka jooga komisaariyaataha alloora nimankaana niman la yaqaana xataa hadday doonaan ma aha waa sax waa gartaa umalaadakayga dadkay ku dhex jiraan waa gartay axmed nuur aad iyo aad baan u fahmay ma jirta tiimkay adigu dheeli jirta jeeyaan u dheeli jiray waagi dambe tijeeye waxaan horta kow ku soo galay bangiga aan u dheelnay oo waxaan keennay intaan division B intaan ka soo wadnaan A keennay A markaan keennay ayaan u ciyaaray waan ka tegey jeeya i qaadatay jeeye markay i qaadatay jeeye in muddo markaan joogay jeeye xoogaa way anfici weysay waxay anfici weysay xagga nolosha iyo dhaqaalaha alloora waxaa dhacday Soomaali tax oo wakaalad ahayd oo ka dhisan balcad xaggeeda oo nolol iyo dhaqaale iyo adduun haysa aan maxaan yidhaha aniga iyo ciyaartooy kaleetaba midaan tagnay ay noqotay waka marka ma jirta bangigana waa u dheelayaa afartii baa u dheeshay afartii taqriiban meeqa u dheelaysa futbolka 15 sano 10 sano maya 15 sano marka ayagoo dhanban isku daro 15 sano meelahaas camal waa ay noqonaysaa laakiin futbolka kuugu horreeyay meeqa sano ay ahayd aad ku soo gashay age-ka 16 12 ما 16 12 ما جرت اعوذ بالله وبيقول يرير ما بعد ويرير حافظها واي marka سيري بي waxa lagu soo galaa سيري بي اللي ماده hadana maxaan ilaha سيري A اللي ماده سيري بي dadka fiican ciyaartooyda ah kooxaha ka xulanay alloor anaga سيري بي waxaan u ciyaarnay bankigi سيري A ayaan keenay سيري A bankigi markii aan keenay oo aan u ciyaarnay سيري A bankigi jeeyaan laga qaadatay jeeye markay iga qaadatay jeeye muddaan u ciyaaray kadibna midaan ka tagay noqotay axmed nuur weligaa dibadda ma ka ciyaartay wadankee ka ciyaarnay afrikaan ka ciyaarnay waxaan ka ciyaarnay maxaan ilaa waxaan ka ciyaarnay meelo kale badan aan ka ciyaarnay way gartaa uma leedahay marka axmed nuur aad iyo aad baa u mahadsan tahay sawiradii aanu tustay waxaana ku soo qaadan doonaa qaybteenna afraad insha Allah anagoo kaa waraysan doono xama nool yihiin xaggee degan yihiin xaggee ku dambeeyeen yaa laacib ahaa yaa ugu dambaystisanaa yaa mar walba lagu xisaabtami jiray tiimam waxaa jira ninka laacibka mar walba inta la qaato jeeyo kale 2 qofood ay qaadan jirtay 3 qofood marka barnaamijkeena afraad ayuu u dhacayaa axmed nuur barnaamijkeena ma u soo noqonaynaa jeeyo ay kugu dambaysatay ma u dheeshid maya waan ka tagi jeeyo Soomaali Texan tagi Soomaali Texan dheeshay bangi aniga bangiga jeeyo iga qaadatay bangi jeeyo markay iga qaadatay jeeyo waan u ciyaaray muddo ka bacdi waa ka tagay Soomaali Texan alloora meesha waxyaabaha jira waxay ahayd problem economical yaa jiray waa sax waa ka economical ka caawinaya ayaa u wareegay haddaba waa taagan tahay tusaale markaa u soo qaaday adoo Aston u ciyaaraya Man United hadday ku soo dalbato waxa leedahay meesha waxa ma yaalee anigu waxaan rabaa league inaan dibadda aado inaan horyaalo badan ka qayb galo oo teetalana aan qaado okay axmed nuur aad iyo aad baan kugu mahad celinaynaa waxa jirtay arbitrayaasha calan wadayaasha iyo arbitrayaasha isku system bay ku shaqeynayeen meesha waxa markaas kaaba ka arbitraha calan wadaha haddii aad rabtana waad tixgelinaysaa haddaad rabtana calanka u taagay waad ka jeesanaysaa shaqo kuma liidaan kaaga hadlaa hadduu khalad wax uu u taago khalad meesha refriga leh arbitraha leh waaya stadiumka ku dheelayseen stadium Muqdisho ma stadium Konis buu ahaa stadium Muqdisho aniga xilligan waa ka tegay marka waa stadium Konis waa gartay axmed nuur aad iyo aad baan kaaga mahad celinaynaa barnaamijkii gaabnaa aadna siisay mar walbana barnaamijyadeena waa noo taxana weeye waxaan ku leenahay aad iyo aad baa u mahadsantahay adaa mudan ku faraxsanahay waan soo dhawaynayaa waa sax TV-gan aad iyo aad baynu kugu mahad celinaynaa channelkeena waa Rio Socdaal like it share and subscribe mar walba comment-kiina iyo wax walbana waa kaga jawaabaynaa mar walbana waan ognahay inaa daawataan annaguna waa inala soconaa aad iyo aad baynu kaga mahad celinaynaa thank you